Rayaan Abuukar Cali waa 18 jir inta badan ku soo barbaartay isla markaana ku soo kortay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Rayaan waqtiga ugu badan ee nolosheeda waxa ay ku soo qaadatay isla markaana ay ku soo kortay agoonnimo. waxa uu aabaheed uu ifka ka tagay sanadkii 2013. Rayaan Abuukar Cali qoyskoodu waxa uu ka kooban yahay marka iyada lagu daro 7 caruur iyo sidoo kale hooyadood. caruurta dhamaantood waa ay ka yirihiin Rayaan mana haystaan garab ka caawiya in ay wax bartaan ama ay helaanba kiradii guriga ay ku nool yihiin iyo sidoo kale waxa ay ku moodaan noloshooda maalintaas. Rayaan Abuukar Cali wixii ka dambeeyay waxbarashadeeda dugsiga sare waxa ay bilowday in ay barato xirfado ay ugu adeegto qoyskooda danyarta ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Rayaan Abuukar Cali waxay markii ugu horeysay ay bilowday in ay isku daydo in ay wax qorto si ay u iibiso buugaagta. waxa ay qortay buugaag kala duwan oo caan ka ah caasimadda. waxa ka mid ah buugga la yiraahdo Hagaynin Gurigaaga Guuldaro. sidoo kale waxa ay qortay buugaag kale oo u badan kuwa ka hadlaya dhiirigelinta aadanaha. Rayaan Abuukar Cali markay ku dhibtootay iibinta buugaagta waxay u jileecday in ay xirfad ka barato xirfadaha faraha badan ee ku aadan kalluumaysiga badaha oo ay ka buuxaan qiraad badan. waxay ahayd go'aan geesinimo leh oo ay qaadatay Rayaan. waxay ahayd iyadoo gabar da'yar ah isla markaana ku jirta waqtigeedii dhalinyarnimo in ay isku biimayso sidii ay badda u geli lahayd. waxay baratay qaabka loo soo jalaabto kalluunka waxaana ay ku biirtay koox kalluumaysato ah oo aroor walba u shaqo tagta xeebta Liido ee degmada Cabdilcasiis. Rayaan waqtiga ay badda ku jirtay waxay heshay nolol ka roontii hore laakiin markan waxa qabsatay caqabado ay ka mid tahay mowjadaha badda iyo halista ay leedahay kalluunka. Rayaan waxay dhawaan bilowday in ay barato kaxeynta mooto bajaajka. waxay ku qaadatay 4 cisho iyadoo hadda si fiican u taqaana in ay kaxeyso mootada. Rayaan waxaan kula kulmay magaalada Muqdisho. xilliga waxaan ahaa qof sugayay in aan raaco mooto. waxa aan ku sugnaa xeebta Liido ee degmada Cabdilcasiis. waxaan la kulmay Rayaan oo kaxeynaysa mootada iyo aniga oo igu jiro degdeg. mootadan waxa ay muuqataa in ay dabcan ay saaran tahay oo la socoto qof dumar ah isla markaana ay darawalka tahay. anigu waxaan sugayay mooto bajaaj aan raaco. waxaan doonayaa inaan markan gabadha wax weydiiyo. Assalaamu calaykum. ومركي ugu horeyso aan arko gabadh mooto kaxeynaysa isla markaan darawal ah waxaan doonayaa inaan aamino oo kalsooni aan ku qabo isla markaan aan raaco mootadeeda. hornood anigii iyo Rayaan halkaasi waxaa nooga bilaabatay sheeko. waxaan wax ka weydiiyey nolosheeda iyo wax ku qasbay in ay kaxayso mooto bajaajka. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أمد الصومالية مروا بكم اليندوني بدعالة دوان سلامي. أنا مقعيقو يا ريان أبوكر علي كنا المقالة مقدشو إن وحن وضع بجاج أما أنك حياة أنا لو قلت لقين هاوين وحن كلو حفرة أن أقول لها إن كشقة استبض صوماليا قيرات إلهي نسيه وحن كلو حفرة أن أقول لها إن قرب بوقتها سيدا إن بوقتها قوش لغو قارو أما هرمارك لغو قارو كان هالله guusha isku day oo ku goobinay dhalinyarada Soomaaliyeed dhamaantood. waxaan kaloo sameeyay bajaaj aan kaxeeyo ku goobinay gabdhaha Soomaaliyeed dhamaantood inay shaqeystaan meel walba shaqadu ka jirto. shaqadu cib maaha shaxaad ka ceeba. waa gartay Rayaan xirfadan ay ah kaxeynta dabcan mootada tugtug ama bajaajka xilliga bilowday. waxaan bilaabay muddo sano ka hor ah bajaajka waan kaxeeyay laakiin ummadda Soomaaliyeed iga rabto oo aan ka wada waayo oo dacayadeen ama yaayeen oo meesha la arkay la fiirinayo marka qaar ay wadada istaagan istaag maxaa bajaajku wadaa ay dhahan ay weydiiyaan maxaa bajaajku kalifay
anoo isdhahay maanta waa ku gashay shaqo hesho waxaa la dhahaa bajaajka maxaa wadaa waa gartay dhibaatooyinkaasi aad kala kulanto bulshada ka sokow kaxaynta bajaajka waa xirfad aad u dhib badan oo xitaa ragga qaarkood ay ku dhibtoodaan adigu sidee kugu fudaatay barashadeeda wallaahi barashadeeda muddo 4 maalmood ay igu qaadatay waxaan ku bartay laamiga mandaraayada aad ay igu adkeyd inaan bajaaj wadi karta ismaana dhayn laakiin markii aan isku dayay wax walba oo isku day markii aan isku dayay waxaan aaminay inaan bajaajka wadi karo kadibna waan ku shaqaystaa waa gartay iiga waran inta badan meel kasta mee dadka u kaxayn kartaa mise meelaha qaar waxa weeyaan fog ma aadi kartid may meel kasta dadku ma kaxayn karo bajaajka waa la iska dhacaa waa la kaxeeyaa ragga ayagoo ragga inta la kaxeeyaa bajaajka laga soo qaadan anoo naaga waxa waaye bajaajka dhan laga gudina waa gartay rayaan marka waxaan sameeyaa meelaha laamiga u dhow oo kale ama maalin cad bisana shaqeeyaa meelaha laamiga u dhow waan ka shaqeeyaa hadduu idho qofka liidaan rabaa beach view rabaa waa keeni karaa waa meel public ah qof iguma kaxaysan kartaan aaminsanahay meel walba qof Soomaaliya joogo laakiin meelaha luuqluuqbanka ama fog ma aado wax walba lacag doonto la sheega ma aado waa gartay inta badan kaxaynta bajaajka oo kale marka laga hadlayo kale maadaama adigu darawalkii aad tahay ma adig keliga baa bajaajka kaxeeya oo qofna uusan kula socon mise marka qaarkood dad baa ku caawiya may markii aan rabo qof ay raaco marna kaliya kaxeeya markii kow aanan geesinimo aan u wadi karin bajaajka waa cabsan jiray baabuurta weyn aan ka cabsan jiray horay meeshan camal aan riifaysan jiray kadib bajaajkan kaxeyn jiray breega bisa la qaban jiray inta kale aan kaxeyn jiray laakiin markii aan barto xogaa aan geesi noqday aan kaliya kaxeeya waa gartay maalintii oo kale imisa ka heshaa lacag $10 oo kirada ka dhigaya iyo wixii oo laguma tashan karo halaas ma dhigi kartid laakiin wax oo nolosha maareyn karo kaleesa waxaan u fahmay in bajaajka adigu aadan lahayn oo shaqaale ka tahay ha shaqaale aan bajaajka ma lihi $10 lacag laga rabaa hada saaxiibada xataa ana laga rabaa hada soo shaqeeyana laga rabaa qasbiin waa inaa 10 kaas bixiyaa sida dabcan kuusta gashaa adoo ah qof gabadh ah waliba mooto kaxeynaya inaad lacagti laga sugay aad bixiso kuwa kale ka faa'iido soo ku tirsan soo kalmada waxaan ka lacagta waan bixiyaa waxna waa ka faa'iidaa meelaha badana horta naagi ma raacdo naaga ay kala ordaan waxay aaminsan naag inay wadi karin bajaaj ma ila gadinay waxyaabaha noocaas ku hadlaan ragga ay raaca raggana waa meelaha publicada ku waraba bisaan kaxeeya sida beerta nabadda beach view-ga meelahan kaxeeya habeen madowna ma shaqeeyo maalinta uun baan shaqeeyaa waxay ugu tiri rakaab ugu badan ay ku raacaan waa rag dumarku iyagu ma ka baqdaan may isku kiyaaminayaan inay ku raacaan badan ma dhacdo waa gartay inta badan marka laga hadlayo bajaajka dadka qaarkood sidoo kale aaminsan in suuq ay leedahay adoo gabadh inaa wado raggu ay kugu dhiirinayaan taa ka waran kale wallaahi raggu igu dhiiriyaan waxay dhahaan shaqayso maasha Allah kuwa waxay dhahaan naagta ma soo waalata maxaa waa bajaajka wado oo la'aan badanaa midaan waa ciyaal suuqada qof wuxuu dhahaa qofna markuu arko maasha Allah gabriiro bajaajka shaqaynaysa maasha Allah waa fiicanta soo ani waxaan leeyahay qofka shaqaysta waa qof sharaf leh shaqadu cad ma shaxadka taas aaminsan I can believe it waa gartay lacagaha aad ku sarto kale maxaa u isticmaashaa family-ga ku maareeyaan walaalay waxbarashay dhigtaan dugsiga sare qaara dhigta kuwa iga yar mid iga yar waa form 4 kan kale ka sii yar dugsiga dhigtaa intaasan ku maareeyaa ikirada iyo family-ka biiladooda aadaan u jeclaa family-kayga inaan maareeyo meel ka soo saar ana hamiyaan leeyahay hooyo abka aabuu dhinta laakiin hooyo nool oo maxay qabataa hooyo mashaqayso ma shaqayn karto laakiin ana bisa shaqeeyada waa gartay dhibaato qoyskaaga ma la kulantaa inay dabcan ku yiraahdaan oo kale shaqooyinkan waa shaqo adag gabar baa tahay ma la kulantaa dhibaato qoyskaaga may hooyo uma sheegay inaan bajaaj wado dhikare qabtaa laga yaabo inay is dhahdo gabadha bajaajta wada shilay gadi kartaa waxyaabanaas uma sheegay laakiin waxaan dhahaa badda markaan ka shaqeynayo waxaan dhahay hooyo caawiyaan ahay bajaajkan hadda ayada ma ugu samaa laakiin way ogtahay inaan wadi aqaano abeen ay aragta anoo guriga keena bajaajka wado yaa ku dhiibay tire kasaan dhalaamiyada ma geelaamiga ka cabsanaya bajaajkana iska barbaranaya amal ku shaqeynaa kuma shaqeyn kartid waxyaabaha noocaas waa kala kulma laakiin ma ogeysin inaan hooyo bajaaj ka shaqeeyo qoraa inaan ah laakiin way ogtahay tan qoraanimada aad bay igu taageertaa garab ay naga siisaa waa gartay runtii waxaa tahay qof howlkar ah waliba aad ku daysho badan marka laga hadlayo da'dii waxaad ku jirtaa wax aad baran lahayd waxbarashadaada riyaan iga sheekay wax martaa high school waan dhameeyay
primary waxaan ku dhameeyay xiriya qaxootiga Kakuma high school kan waxaan ku dhameeyay iskuul la dhahay Newsley ku yaala Kenya day to day agteeda dugsiga primary kan waxaan ku dhameeyay Kakuma meel la dhahayo Kakuma 1 dadka qaar ay yaqaano u tagay Kenya وقتي دكسري دكسر دحور ماشي دكسر hoose kadib jaamacad bilaabay ما bilaabin jaamacad laakiin insha Allah ku rajaweyn in hada jaamacad waan go'goobay jaamacada ummadan soo helay waxa la dhahay sanadka dambe la qabsanaysa maxaad dareentay markii gabdha asaagaaga aad aragto oo ka shaqeynaya xafiisyada ama jaamacada marka ugu horeysa waxaan weydiiyay kuliyada ay barteen qof maanta aan lacag haysta ama professor hadaan arko wala sheekaysta waxaan weydiiyay sidoo heerkan ku soo gaaray si aan heerkaas oo kale aan u gaaro waqti inta badan xataa qof sidoo kale qoyskeeda gacanta ku haya ee kaaba maanta marka qoyskaaga soo saarto nidaamyada waxay dartaa aadaan u faraxsanahay maadaama aan wax xoogayga aan ka soo shaqeysto aan soo helo aadaan ugu farxaa waxaan isku dhiirigeliyay inaan gabar fiican ahay hadana shaqeysata aan shaxaad raadinin hamigaygu waa meel sare insha Allah taala hamiguna mar buu hirgalaa